magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta lagu soo dhaweeyay wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha wakiilada Jubbaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo maalmihii ugu dambeeyay ku maqnaa dalka Sacuudiga halkaas oo ugu maqnaa gudashada waajibaadka xajka gudoomiyaha golaha wakiilada Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan waxa qayb ka ah mas'uuliyiintii la socotay wasiirka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha mudane Maxamed Nuur Cali Cabdullaahi iyo xubno kale gudoomiyaha iyo xubnihii la socday waxa soo dhaweeyay mas'uuliyiin isugu jiray xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan Jubbaland oo ay kamid yihiin wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Jubbaland xildhibaan Cali Cabdiwaaxid oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay soo dhaweynta gudoomiyaha iyo xubnihii kale ee la socday waxaan sharaf weyn noo ah inaan soo dhaweyno gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan gudoomiye soo dhaw dhulkii nabada oo barwaaqa oo roob noo daay gudoomiyaha golaha wakiilada Jubbaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo gabagabadii warbaahinta la hadlay ayaa u mahad celiyay madaxdii kala duwaneed ee maanta magaalada Kismaayo ku soo dhaweysay dhaweeyeen iyadan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mar labaad ilaahay baa ku mahadsan waxaan maleynayaa waxaan inta ka baxay 25 bishii Juun bay ahayd aan maleynayaa saako kale oo ay tahay khamiis baan inta ka baxnay maanta waxaan maleynayaa taariikhdu waa 20 bishii Juulaay alxamdulillaah rabbil caalamiin dalka iyo dadka iyo in walbana waa u soo duceynay ilaahay naga aqbalo marka alxamdulillaah adinkan soo dhaweynta aad soo dhaweyseen waa idinka mahadnaqaynaa ilaahay ha idinka siiyo ajir iyo xasanaad badan marka ilaahay baa ku mahadsan inuu nabad nagu soo celiyay dhulkii oo gadaashana aarmay oo xoolihii ay doogsadeen dadkana ay insha Allah iyagana ay soo roonaan doonaan Sabriya Somali Jubbaland TV Kismaayo.